بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkeena maanta waxaan ka bilaabaynaa half life calculations, xisaabaad ku saabsan cimri barka ama nolosha barkeed. Barty 4 qaybta afraad. Example 4 tusaalaha afraad. How many days imise maalmood does it take ayay ku qaadanaysaa 16 grams 16 gram of palladium 103 curyaha loo yaqaano palladium isotopka ama isku godka nambarkiisu uu yahay 103 to decay inuu u burburo oo uu noqdo to 1.0 gram 1 gram 1.0 waa iska 1. The half life of palladium 103 is 17 days. cimri barka uu leeyahay curyaha palladium isku godka nambarkiisu uu yahay 103 waa 17 maalmood. marka bal aan qorno waxa nala ka rabo iyo wax aan haysano. How many days does it take? waxay noo noqonaysaa t imisay ku qaadanaysaa, waa time gun waana la weydiiyey. 16 gram waana la siiyey. 16 gram of palladium 103 waa amount at the beginning. bilowga waxa lagu siiyana waxaa loo qaataa n0 ama no waa 16 grams. to decay waxay u burburtay oo ay gaartay 1.0 gram waa amount at the end waxaa loo qaataa nt waa 1.0 gram ama 1 gram. half lifeka waa t half waa 17 days. aan qorno sharcigeenna caadiga ahaa. nt waxay la mid tahay no oo lagu dhuftay half to the power n waa sharcigii aan ku shaqayn jirnay. aan ku badbedelno nt maxaan haysanaa 1.0 1.0 gram. no maxaan haysanaa 16 gram. half power n waaya markaan meeshaan marayno dhinac walba u qaybay 16 gram. okay 1.0 gram loo qaybiyey 16 gram intana 16 gram u qaybi iyadii qor 16 gram. aan isku kansalno marka 16 gram iyo 16 gram gram iyo gram. inta waxaan helnay ama noo soo hartay intaas. intana waxaa noo soo hartay half to the power n. tan waxaa loo qori karaa marka sidan 1.0 waa iska 1 loo qeybiye 16 inay la mid tahay half to the power n. waxaa loo sii qori karaa 16 to the power minus 1 oo la mida tanna waxaa loo qori karaa 2 to the power minus n. 16 marka aan furfurno wuxuu la mid yahay 2 power 4 waa 2 oo 4 jeer la isku dhuftay. qaabkaasaan u qorna marka 2 power 4 to the power minus 1 iyo 2 to the power minus n. okay labadan isku dhufo bayska dhig
labadan isku dhufo 4 haddaan ku dhufto -1 waa -4 waxay la mid tahay 2 power -n. halkan markaan marayno xeerka jibaarada ama powers rule aan raacno muxuu ku leeyahay haddii basiska ay isku mid yihiin powerskana waa isku mid, salalku hadday isku mid yihiin jibaaraduna waa isku mid. So waxaan leenahay -4 waxay la mid tahay -n. labadan isku cancel, n waxay la mid tahay 4, n waxay la mid tahay 4 macnaheed marka waa 4 half lives, 4 cimri bar. waaya n maxaa lagu helaa marka waa naqaanaa t oo loo qeybiye t half, sharcigaasaa lagu helaa. sharcigan ka soo saaro t waxay la mid tahay labadan laisku dhuftay, t is equal n times half life. ku bedel t waxay la mid tahay n meeqaan soo saaray, n waxaan soo saaray 4 oo lagu dhuftay t halfna meeqa waay 17 days. jawaabtu waxay noo noqonaysaa 68 days. cashirkeenni maanta oo aan ku soo qaadanay half life calculation part 4 intaasuu noogu egyahay. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan share, like, subscribe, commentna ka bixi. haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xirnaydna share, like, subscribe, commentna ka bixi. waa ku mahadsantihiin daawashadiina aad daawateen kanaalka Bara Chemistry. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.